السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay ama ay ka hadlaysaa nin u dhashay dalka Hindiya. Ninkani ayaa lagu magacaabaa Gandhi. Gandhi wuxuu ahaa nin u dhashay dalka Hindiya. Wuxuu ahaa nin aad dadka uga yaabiyay habka uu fikirayo iyo sida uu mar waliba uga shaqeynayo inuu dadka ku soo dabaalo nabad iyo nolol. Gandhi wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka aad u daneeya siyaasadda, isla markaana wuxuu ahaa nin xigmad badan. Waxaa laga soo guuriyay oraah ama erayo oo dhaxalka u noqday caalamka, taasoo dadka aysan iloobi karin. Sidoo kale Gandhi wuxuu lahaa qisooyin aad u cajiiba oo ku saabsan shakhsiyadiisa. Ma uusan ahayn nin mabaadi'da uu aaminsan yahay kaliya ku soo kooba hadal, balse wuxuu ahaa nin aaminsan inuu xaqiijiyo waxyaabaha uu aaminsan yahay. qisooyinkiisii waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu ka soo baxay gurigiisa isagoo doonaya inuu tareen wadada ka raaco. Tareenkii ayuu soo koray. Markii uu soo korayay ayaa waxa ka dhacday kobtiisii. Tareenkii ayaa markiiba dhaqaaqay, mana uusan awoodin inuu kobtiisa soo qabsado. Sidaa darteed tareenkii ayuu galay. Hase ahaatee ninkani ma ahayn nin caadi ah, wuxuu ahaa nin xigmad badan. Arrinkana sida uguma tegin, balse waa uu fikiray. muddo yar ka bacdi ayuu wuxuu sameeyay kobtii u hartay ayuu daaqada ka tuuray. markaasaa dadkii ag fadhiyay la yaabeen waxa uu sameeyay Gandhi. dadkii ayaa weydiiyey oo ku yiraahday maxaad u tuurtay kobtani? markaasuu u jawaabay wuxuu ku yiri maadaama ay hal kob ii hartay waxba iima tarayso, waxaan ka faa'iidana ma jirto. kobtaan ka soo tagayna haddii uu helo nin faqiira waxba kama faa'iidayo. waxaan u tuuray haddii uu qof maskiina helo labada kobood inuu kaga faa'iideysan karo inuu ku nacfiyo. halkii uu mid waliba naga mid u qasaari lahaa, waxaan doorbiday inuu midkeen qasaaro midkeenna uu faa'iido. sidaa darteed ayaan u gamay kobtii. qisadani halkaa ayay ku eg tahay. hase yeeshee qisadani waxay xambaarsan tahay waxyaabo aad u fara badan. Gandhi wuxuu noo dhigay cashir aan weligoon iloobeynin, taasoo noo noqon doonto inaan kaga faa'iideysano intaan ku noolnahay dunidan. wuxuu Gandhina baray inaan mar waliba ka fikirno midkeen siduu ku faa'iidi lahaa, balse aan ku fikirin inaan wada qasaarno. hase yeeshee dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay mar waliba ku fikirayaan inay iga faa'iidaan oo qof kale qasaaro ama la wada qasaaro. taasna ma aha nolosha saxda ah. haddii aad walba taadi aad weyso, isku day qof kale inuu faa'iido, ee weligaa ha ku fikirin in dad kale ay wada qasaaraan. maxaa yeelay in la wada qasaaraahi ma ahan waxa loo socdo. haddii aad guulaysan weyso, ha isku dayin inaad ka shaqayso guuldarada, balse ku fikir walba qofka walaalka ah inuu guusha qaato. sida ayaa ah midda saxda ah. soo kale Gandhi wuxuu noo dhigay cashir ah noloshu ma ahan inaad kaligaa faraxsan tahay, balse nolosha ama sacaadada runta ayaa waxay tahay in dadka gaararkaagan ay faraxsan yihiin. haddii aad nolol macaan ku jirto, dadka kula joogana ay dhibaato ku jiraan, ma aha nolosha saxda ah, balse waxaa sax ah inaad adigana faraxsan tahay, dadka gaararka ku noolna ay faraxsan yihiin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.